السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa artagti hoodo maanta insha Allah waxaan isla eegi doonaa qodobada ugu muhiimsan marka uu qofka client-ka uu dhisanayo ama customer-ka kolba soo taqaanaan marka rabo inuu guri dhisto qodobada ugu muhiimsan. Qodobadaas waxay kala noqon doonaan shanta qodob. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan qofka inuu eego budget plan-kiisa oo taa micnaheedu ay tahay qofkani yani lacagta uu haysta suuqa muxuu uga goynayaa guriga ama ku dhisaya mise kuma dhisayo guri bad dhisanaysa gurigaas oo la jaan qaadi kara sanadka oo aad u tayo fiican oo qurux badan hadii laakiin si gurigi aad iska taagtidun ama aad dhistidun micnaheedu waxay noqonaysaa inaad dhistid guri aad tayadiisu hooseeyo oo sanadadii u dhigma 2009 2005 in la dhisayo kale qodobka labaad wuxuu noqon doonaa insha Allah inaad u geysatid artagti khibrad u leh ama nashqadeeye design-ka si fiican u nashqadeynayo khibrad fiican u leh taasi waxay ka caawinaysaa gurigaaga plan-kiisa in si fiican lagu qaybiyo oo space-ka laga khasaarinin sidoo kale waxay ka caawinaysaa in gurigaaga bilicdiisa iyo tayadiisuba u comfortable qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa inaad gurigaaga u geysatid shirkad tayo leh oo lagu kalsoon yahay shirkadaas oo adiga muhiimad ay ku tahay inaad eegtid background-keeda guriyaas ay u dhistay si dadka ula macaamishay sida Sanmad Construction Company oo kale qodobka afraad wuxuu noqonayaa inaad gurigaaga u eegtid yani materialka dooranaysid adoon ka fikireynin lacagta qodobkaas wuxuu ka caawinayaa qodobkii hore u soo sheegnay ee ahaa inaad budgetkaaga si fiican ula socotid yani suuqa wuxuu ka goynayo qodobkan afraad hadaan ku soo noqdo qodobkan afraad waxaad ka hortagaysaa gurigaaga materialka galaya waayo guriga bilicdiisa waxyaabaha aadka u caawiyo waxa kamid ah materialka galaya sidoo kale macnaheedu ma aha inaad lacag badan haysatid ama inaad lacag badan kharash gareysid macnaheedu ma aha laakiin macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha una guriga ka maarmi karin inaad ka duushid si gurigaaga bilicdiisa iyo quruxdiisa u sii jirto qodobka shanaad wuxuu noqonayaa macmiil inaad ka warhaysid gurigaaga halka uu marayo xaaladiisa iyo sida uu socdaba adiga oo connectigaad la leedahay shirkadda design-kaaga u dhibatay aad iyo aad wanaajinaya taas waxay ka caawin kartaa inaad gurigaaga ogaatid marxaladdu marayo